isaga tuuray Ethiopia-ka nabadgelyada Ethiopia-ka waxay soo saareen niman fara badan oo Soomaali ah oo madax ka ah nabadgelyada Ethiopia-ka u shaqeynay korneela majara kabtana janana ilaahay yani jaajusin Soomaali oo dawladda Soomaaliya kamid ah oo wasiirro ahaayeen oo saraakiil ahaayeen Sambalo Shakwas buu kamid ahaa dadkii lagu soo Ethiopia-ka ay soo qoreen marka horta nin Tigray buu iska ahaa asaga Tigray iska hadda maantana way ishayaan asaga iyo nimanka dawladda hay ahayd nabadii nool anigu Soomaalidu inta aan ka bartay intii dhaqdhaqaaqa u socday oo isku dayeynay inay wax sharaf leh ay Soomaaliya ala aqal Soomaaliya la badbaadiyo dad baa jira aan muqaawamadii kamid ahaa oo asmaar isku baranay inta isku baranay meel kasta isku baranay wadani rasmi ahaa oo xalaal ah waxa kamid Abdi Xaashi aqalka sare ninka gudoomiyihiisa waxa kamid Maxamed Cabdi Yuusuf wadani ah hadaaf ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa kamid ahaa Umar Xaashi ninka la oran jiray oo ku shahiiday maxay ahayd Beledweyne waxa kamid ahaa Jaamac Yare Jaamac Ahmed Qaalib ogan Sooma rag badan oo ceenkaas oo kala jiray hadaad i weydiiso Abdi Xaashi wuxuu ku hadlay Sambalolsha midna jaajus Tigray u shaqeeyo ah waad gartay Sooma cadeynteeda laakiin taa ma hayna Soomaha waa soo qoray Tigray soo qortay wax kasana way ahayd war Soomaali in kaarba ku dhacday Soomaali kaarba ku dhacday khaa'inkii wadanka baabiinayay soo istaagay aniga hadii aad iga weydiiso qalbi dhaxa dhibistiisii arinta iyada Abdi Xaashi saddex jeer baan aniga wareystay saddex jeer hadalkiisa waxa ka muusan bedelin arinta qalbi dhagax muxuu igu yiri Sambalo Shan oo yimid wuxuu naga dhaadhay qalbi dhagax inuu rabo inuu Ethiopia u leeshiyo laakiin uu sin jecleen inuu mara Soomaalida iyo gobolka Soomaalida waxay baan ka soo kalo ay khatar badan ay jirtay waana run oo kuwan hadda lagu leeyahay ahlu sunna wal jamaa iyo al-shabaab markay arkaan dadkii oo la fiidilayeen way laynayeen ilayagana murtaziqiin lagu adeegto Tigreeda u shaqeyn jireen iyo wixii la midka leeyahay maal oo dhanba maxaa Tigreeda iyo Oromaalki Imaaraadka iyo dadkan kale oo dhan wax isku wada xirnaa bay in marka uu doonaya isaga in la dhiibo mid hadaad i weydiiso waan labadooda haday noqoto waxaan aaminayaa aniga ninka la Abdi Xaashi hadalka ka soo baxay mid hadaad i weydiiso oo kale laakiin falaari gilgilasho kaaga ma goodo the back stops with the Somali government dhiibistii qalbi dhagax waa qasab in ay farmaajo iyo khayre ay raali gelin ka bixiyaan una sheegaan Soomaalida meel alle meel joogto dhanbo dhibka soo ku dhacay maxaa dawladda iyaga mataliya dawladda waa madaxweyne iyo prime minister midda kale oo aan maxay ahayd iyadana aan sinaba looga gaban karin oo anigu aan hadda ka hor iri adiga wareysanaysa aan iri khayre iyo farmaajo hadii arintan sidan hadda ay tahay ku soo baxday ku soo cadaato khayl wadanimada meesha ku dhamaanaysay bay ka bilaabeen maxaa in nin Soomaali oo sargaal ahaa oo soo halgamay oo soo dagaalamay intii la qabtay la dhiibo waxa nin isku dayay khayl kasto dhan ba yaana taa sameeyay oo la shaqeyn jiray Tigreeda maalkii iyo Ethiopia la shaqeyn jiray ayagana waxa weeye dadka lagu soo galiyay naca Ethiopia farmaajo waxa lagu soo doortay Ethiopia inuu ka xoreeyo Soomaaliya Tigray inuu ka xoreeyo lagu soo doortay bariga midda laakiin la yaab kale oo iyadana in xisaabteeda si fiican loo imaaday anu farmaajo toos bi ugu yiri yeeshay wuxuu yiraahday waana la sariibi waxaana sariibi ninka la yiraahdo Sambalo tabankan haduu Abdi Xaashi sheegay oo kale sir oo uu nasri oo wuxuu yiri ninkan asaga tagi raba passport Ethiopian oo asaga uu ku sawiran yahay wax kasto dhanbo inoo keeno yiri waa kan ninkan passportkiisa wax kasta uu xanuunsanaya waana la leeshiis Ethiopia asaga inuu tago raba uu leeshiyo oo xagga uu tago gudaha tago laakiin haduu meeshan dhaxda sii maro dadka fara badan oo ku dhax jira Abdi Ilay iyo maxay ahaay nimankii al-sunna wal jamaa iyo al-shabaab waxa sayto ayaa dilaya marka anigu i gudbiyo oo ihsaan ii falo oo nimankaas iga aan ka dul daara waa wuxuu siilay kan kar maxaa la Facebook marka horteed oo Tigreeda heshiis baa la gashay inta kula heshiis wada hal u socday way kan kartaa laakiin
cabdi xaashi wuxuu yiri midii iseegtay aniga inaan dhahay ii keen qalbi dhagax afkiisa intaa iga yiraahdo isaga marka nin xabis ku jiro oo laga soo qabtay galmudug oo haddana inta la keenay say ku seegtayba way seegtay laakiin fallaar gilgilasho kaagama goodo ninka la yiraahdo magaciisii dowladii nolol iyo nabad oo maartay farmaajo waa qasab in ay ka jidbaxaan ummadda Soomaaliyeed ku saabsan arrinta qabashadii wareejinta qalbi dhagax midda kale oo iyadana xisaabtankeeda ay leedahay oo qasab ay noqonaysa in admission la sameeyo laga raali geliyo ummadda Soomaaliyeed lana sheegay say u dhacday ilaan runtu dadka madisha way ka naxsaamoyee waxa weeyaan golaha wasiiraha markay dhaheen ay ONLF ku tilmaameen inay tahay urur argagixisay waad kasama taana iyadana waxay leedahay arrin oo fallaar gilgilasho kaagama go'de sanbalulshe wuxuu yahay waanu naqaanaa cabdi xaashi wuxuu yahay waanu naqaanaa labadooda isku kan qabsato we prefer to trust cabdi xaashi magarta halkay gudoomiyaha inaan trust garina iyo caynka laakiin iyagana waxbaa sheegay haddana wixii way sii socotay waa kii la yiri haddana maxay ahayd ONLF waa argagixisay la yiri waad garsama waa argagixisay la yiri oo Brobio hadalkii ereyadii uu sheegay gabre uu ku hadlay uu yiraahday waa terrorist organization inay golaha wasiiraha Soomaaliya ay ku dhawaaqaan dhibkeeda leedahay wax fara badan oo aniga runtii aan ku taageero maxay ahayd nabad iyo nolol oo aan u arko wadanimo iyo si kastaba hadii loo eego in ay dhaamaan kuwii hore dhaamaan kuwa hadda doonaya wax inay qaataan waa jirtaa maxay ku dhaamaan waxay ku dhaamaan sharaftii bay soo celiyeen imaaraadkii bay hor istaageen magarta halkayga magaaladii say doontaan u dhaqanayeen baa kii special envoy baa hilfaha yaa la diray tigreedii iyo gabgabteedii bay go-aan adag ka qaateen magarta halkayga nidaam badan wax badan baa isbedel baa dhacay heshiis maxay ahayd oo miro dhalay oo socda ayaa lala galay maxay ahayd Eritrea oo Praia State loo galay oo ciidamada Soomaaliyeed tababarayaan Turkiga ay xiriir fiican la sameysteen wadankii wuu soo socdaa kor buu soo socdaa wadanka taa in la iskama indhasaabi karo wuu soo socdaa aad buu soo socdaa waa la isqabsaday Kenya la isqabsaday waa Soomaa way mowqif adag bay ka qaateen oo dadkii farta intii loogu yeeray ka bacdi bariga hore haddii Mareykan u kacayaan iyo haddii u kacayaan wadan kale Addis Ababa markii hore sidii Addis Ababa ay tahay meesha laga soo cumraysanayay laga bilaabi jiray oo sida looga cabsanay aad maleyn karin tii way dhamaatay oo go-aan adag buu ka gaaray laakiin soo lama dhihi karo xaaladda guud oo isbedesho Ethiopia xaaladda guud oo isbedelin oo aanan koo joogin ayay horta go-aanka iyaga ay gaareen taa iyada moogtahay qofka libintiisa lagama hasto khaladaadka meeshay ka dhaceenna waa la sheegaa waad garatay sooma raaligelin in laga bixiyo in la daba in runtii say wax u jireen la sheego khaayan maaha nimankan khaayan wadankii uun jiri jiray mar kasta oo ciidamada ajnabiga wadanka gudaha xoog loo soo gelin jiray ummada Soomaaliya lagu baabiinayay ma dhicin waad garatay sooma ciidanka baa la dhisaya ciidanka baa mishaarkiisa qaadanaya horumar baa jira farmaajada daara jeexday iyo dhulkan dowladda qaatay laguma laha khayraad dhulkan dowladda qaato daara jeexday laguma laha qabiil buu ku shaqeeyaa oo reer below kaalay ma jirto meesha waa ma Soomaaliyada bay ku daareen patriotism-kana way muujiyeen hantidii dowladdana way badbaadiyeen tallaabooyin adag oo mira dhalayna way inoo muuqataa deemihii baa la afinayaa systemkii baa shaqeynaya it's working marka hadday hataa khalad ay barkood ay u sameeyeen oo cabsi meel ay oga imaataba ay ku sameeyeen in ay dhahaan tan iyo tan waanu khaldanay sideen baanu u khaldanay cafis baan u baahannahay oo asagana la weydiisto oo ummadda Soomaaliya la weydiisto taa meesha bay ku jirtaa laakiin mid baan aniga ku sheegi qalbi dhagax waa hero in his own right oo wuxuu qalbi dhagax bilaas looguma bixin waan u sheegay hadda kahor aniga in lagu xiro nasiib baad ku leed baan ku yiri haddaanan lagu xirin magacan iyo qiimahan aad leedahay inna kuma ogaadeen waad fahamtay sooma way dhacdaa Mandela buu intaasoo dhan buu soo maray waa la xirayay ma noqon karto waaba la isdilaa rag badan baa dhintay away Sheekh Deeq away waa la dilay 12 saacadood buu dagaalamay ahlu sunna
kuwa kale oo galmudug iyagana joogaan oo iimaanka alla ka qaaday tigreedi maxay ahayd cabdiiley waa la iskugu tegey waa la dilay waba nool yahay asaga in laakiin haatan uu maamul goboleedyadana kismaayo dad baa lagu dilay markay mudaharaad sameeyeen cadbahalkii lagu taageerahay ninka la yirahdo qalbi dhagax haatan inuu garab ordo asagana oo yiraahdo axmedoobe tigrey wiilka iyaga ay dhaleen buu ahaa axmedoobe wax kastoo dhan axmedoobe hal tigrey meel taagan sida loo qabtay oo jeelka loo geliyay Ethiopia uga soo noqday ayagaasay tuuy wax kale uu haysta malaha marka horta asagana waa dambay u ahaan lahayd inuu ka gaabsado oo nin Soomaali oo waxaan oo dhanba ka weyn oo wixii la soo mariyayna darsina laga qaatay sidii Mandela oo kale Soomaali midnimada isku keenaysa ka shaqeeyo bay ku qumanad inuu uu sameeyo laakiin waa la qabtay waa la dhiibay way dhacdaa oo si bilaash laguma noqdo hero you don't become a hero by sitting in hotel inta kala fadhiisato laguma noqdo waa ina dib loo maro maxaa haray qarankii Soomaaliyeed marmar baa waxa weeyaan adduunka sacrifice la sameeyaa laba jeer ahaan la sameeyaa waliba sacrifice la sameeyaa maxaa qarankii baad badbaadinaysaa nimankan hadda nabadii nolol qarankii ilaa ay haatan waxa noo muuqdo dadaalkooda unbaa noo muuqda laakiin dad wadankoodii gadan hayo ajnabi ka gadan hayo inama muuqato mana aan arkin mana dhicin waad fahamtay sooma wax fara badan oo wanaagsan bay qabteen wixii ay khaladaadka sameeyeen way jiraan على الذي جسمه إن لو هرتجا في عند سيب عرفت اللي بيستقل بنجح يا ماله يا خالد ككدعين وصان كوش شيء اللي الصومالي ودم بالدولة ده قالها وزيرها مركز شركة قالها هي أنبا وحلا إيش شيء هذا كور إن من تلفون أنت إيش ذا هالك اللي يجري أو لقى دقيقة سنشري محي هرسوا لقى دقيقة سنشري وقال سما هير كم هيرد الصومالي ده يقارت بقى كأوصاع لكن هاتن اللي يوجد بالوبه هي wixii halbowlo oo ma dhaafaan oo maxay ahayd khayr wadan meesha ugu dambeysayna mowqif adag laga qaato okay waa ma santahay war fiican way qaybta ugu dambeysaan maraynaa